waxay ahayd nolol aad u qurux badan oo cid walba oo jeclaanayso in mar un dib loogu soo celiyo laakiin ma dhacaysaba runtii waxay ahayd wax cajaa'ib ah السلام عليكم markaad joogtid gobol muddo 12 sano ilaa 13 sano inta la eegnay ay kuugu dambeysay gaar ahaan guri aad ku soo korto markaad dib ugu soo laabatid gurigaas ku yaala gobol oo aad aragtid dhinac walba inuu iska bedelay xagga nolosha iyo sida ay dadku u nool yihiin maanta waxaan rabaa inaad tuso xaafad oo kamid ah xaafadeena oo muddo iigu dambeysay sidaas oo ay tahay isbedel weyn ka muuqdo marka dusha kor aad ka aragtid waxaad u moodaa qadiimi inay tahay janka daawanaysin waa Hajir Pro hadii aad weli nala socotid waxaan ka codsanaynaa inaad channelka noo subscribe gareysid sidoo kalena noo like gareysid aan videogeena hore ugu sii socono laakiin xagga gudaha waxa ka jirta nolol kale oo ka duwan nolosha kor aan uga jeedno waxaan ka bilaabaynaa waxaan rabnaa inaan isbarbardhig ku sameeyno nolosha caadiga ama waxa ay dadka isticmaali jireen 10 sano ka hor iyo waxa hadda aysan isticmaalin totally oo ka fiirinayno biyaha la isticmaali jiray iyo biyaha hadda la isticmaalo raadii la dhageysan jiray iyo waxa hadda la isticmaalo iyo waxa hadda la dhageysto waxaan rabaa mid inaan idin tuso anagoo ka bilaabayno biyihii la isticmaali jiray iyo biyaha hadda la isticmaalo alright waxa ka muuqdo waa cayl sida u jeedin halkan hadda waxa u moodaa biyo badan in laga helin aadna u dhalanaadeen markii aan xaafad inta aan joogay hay'adaha ka dhaansan jirnay alaabtan ku dhaqan jirnay aniga إذا هذا و بيان كسر درجة وعن كده من شرع كده كواسون استعمال جرنا سوليك وقلنا يعني سوليك وقلنا سيرو كلنا على عبد الغدوة لكن هذا وحصلنا ولا يقول بي وحال استعماله تربية واحد مدة إن أنا الله بعدين هذا عيلكي sidoo kale xagaas waxa ka muuqdo mooro loogu talagalay in lagu xareeyo waxaraha waxaan u maleynaa ariga inaan lagu xareyn laakiin waxaraha yar yar lagu xareeyo waxa la sheegay arigana halkaan in lagu xareeyo sida u jeedin waa ku salaamay ay santaas oo kale wanka iyo ay santa kale dhinaca kale ka sii jirto waxa seexan jirnay qolka marka seexan jirnay wuxuu ahaa qol dhis ka samaysan laakiin hadda waxa loo bedelay jiingad markii aan dareeno inaan dareeno maxay leedahay kulayl ama la rabo inaan harsano waxaan isticmaali jirnay oo aan ku harsan jirnay wax loo yaqaan balbalo meel kale ma aha balbalada waa tana waa guri dhistaan ka samaysan waaye dhistaan sababta lagu sameeyay waxay tahay si dabeesha imaato boorkan ay uga reebto neecawdiyo nadiif ahna ay shabaqyadan ay ka soo baxaan qofkan ay u soo gaarto neecaw sidii u eg maxay yiraahdaa mukayfkiyo kale sidii mukayfkiyo kale neecaw eg markaan soo daalno oo aan dugsiga quraanka ka nimaano waxaan sameyn jirnay aniga iyo wiilow walaalaheeya waxaan ku ciyaari jirnay dhagaxan waxaan u naqaanay dhagaxa faraska waxaan dhihi jirnay falaskeena bulaale dhagaxa faraska aan dhihi jirnay maxaa yeelay allah u naxariisto ayeydeen oo ku nasan jirtay halkaas ay fariisan jirtay xagaasii fariisan jirtay
xaggaani dhabarka xijin jirtay si ay ugu nasato ay ugu tiirsato anagana waqtiga aysan imaan waan ku ciyaari jirnay waxaan ka dhigan jirnay sidii faraskii oo kale intii waxay ahayd nolol cajaa'ib ah waxaan rabnaa inaan ida tuso balbalada oo aan galno balbaladii had yar oo aan ugu talagalnay in aan ku nasano ama aan ka helno maxaan yiraahdaa neecawda hadda sidii hore maaha neecawda hadda lagama doonto balbalada ee waxyaabo technology ah oo gooniya loo isticmaalaa sidoo waxaan sameyn jirnay mar walba subaxa hore caagadan shaleeda ee la buuxinaa waxa loo yaqaan qaboojiye dusha kore waxa uga tolan maradaas waa la qoynaa caagan biyo lagu shubaa kadib waxa la dhigaa meel hoos ah hooskaas markii la dhigo dabaasha ay ku dhacdo xoogaa inuu neecaw helo biyahaas wuxuu isku bedelaa biyo aad u qabow badan naftana jeclaynayso inay cabto markaad yar tahay oo aad xaafadiina joogtid oo aad tahay qof iska yar sidaasoo tahay farxad badan ka muuqato gurigiisa joogo noloshiisa caadiga iskaga nool iska baashaalayo jecelna inuu wax samaysto sidoo kalena shaqada guriga iyo waajibaadkana ka soo baxayo waxay tahay wax cajaa'ib ah waa wax mar walba jecel qofka lagu kuna soo xasuusanayo noloshiisii yaraanta sidoo kale waxaan rabnaa inaan galno jikada waa sida gool markaad joogtid jikadeeda sidee u eg tahay sidii ahaan jirtay sida hadda ay tahay inaan ogaano labadaba inaan isku warbar dhigno aan u baahannahay marka waxaan rajaynaynaa inaan gali doono jikada aan wada soconno فيديوغنا waxaan ku soo gabagabeynay doonaa halkan hadii aad ka hesheen waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareysaan noona like gareysaan hadii ay jirto fiidiyoyada noocan inaad ka hesheen waxaan jeclahay inaad comment ka hoose iigu soo qortaan meesha aad jeclaan lahaydeen intaan gobolkan joogo Galgaduud
gaar ahaan magaalada Dhuusmareeb waxyaabaha aad jeceshiin aan ka soo ogaado ama aan idin soo gudbiyo inta ka horreys waxaan leeyahay nooli kulantay maalin wanaagsan